meelan jacayl lahayn jigar yalla u dhibina jirin jinku kaa ammaan yahay isuguna ku jecel yahay halkani waa deegaan dalxiiseedka bacaadka ah ee Abaydhaxan dad badan oo ka kala yimaada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow ayaa booqda maalin walba deegaankan saxaralamoodka si ay waqti dalxiis ugu soo qaataan kuwa badan oo ka arkay internetkuna waxa ay qorsheynayaan inay marun gaaraan deegaanka haddaba sidee lagu tagi karaa dhul dalxiiseedkan oo qiyaastii 10 ilaa 14 kiiloomitir dhinaca koonfur galbeed uga quman magaalada caasimadda ah ee Muqdisho inaad soo gaartid deegaan dalxiiseedkan wax shuruuda kuma xirna muddada aad wadada ku soo jirtid waxaad la kulmaysaa ciidamada amniga oo hubinaya gawaarida ay adeegsanayaan dadweynaha u dalxiis tagaya deegaanka marka aad soo gaartid dhulkan bacaadka ah ee maalmihii dambe loo weeciyay dalxiiskii loo aadi jiray xeebta Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho waxaad la kulmaysaa dhalinyaro ganacsiyo kala duwan ku leh halkan kuwaas oo ku soo dhaweynaya dadka soo booqday goobta Titan oo ah mooto bacaadka lagu eriyo ayaa xiiso gaar ah u yeeshay dalxiiska dhulkan oo markii hore looga sii gudbi jiray Jasiira iyo Abaydhaxanta dhinaca xeebta haddase waa deegaan yara saxara ah waana kan loogu imaatinka badan yahay xiisaha loo qabo mootadan oo ah ganacsi ku cusub dhulkeena waxaad isweydiin kartaa qaabka loo kireeyo mootadan iyo xog ku saabsan sida uu noo sheegay mid ka mid ah dhalinyarada oo aynu la kulanay 10 daqiiqo waxaad ku wadan kartaa $10 halka 20 daqiiqana aad ku kireysan kartid mootadan $15 habka waditaankeedu waa mid aad u fudud oo ma aha mid u baahan barasho dheer qof 3 daqiiqo ka hor aan wadi karin ayaa hadda waxa uu kaxayn karaa masaafo aad u dheer sida aniga oo kale